Yemen waa dal dhaca koonfur galbeed qaaradda Aasiya. Waa dhul buuraley iyo oomane isugu jira. Waxa uu xuduud la wadaagaa dhanka waqooyi waddanka Sacuudi Carabiya, dhanka barigana waxa uu xuduud la wadaagaa waddanka Cumaan. Yemen waa waddan leh xeebo dhaadheer, dhaqan iyo taariikh fog. Waddankan ayaa goob istiraatiiji ah ka haysta marinka koonfureed ee Badda Cas, meel aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta ganacsiga u kala guushaya caalamka. Xilligii hore, dowladihii ka talin jiray aagga hadda loo yaqaano Yemen waxay gacanta ku hayeen sahayda alaabaha muhiimka ah sida fooxa iyo malmalka. Sababo la xiriira bacriminta iyo kobaca dhaqaalaha ee Yemen, waxay ahayd xarun ay saldhig u ahaayeen boqortooyooyin hore, waxaana loogu yeeri jiray Arabia Felix, oo macnaheedu yahay Carabta nasiibka leh, si looga saaro dhulalka baaxadda leh ee loo yaqaano Arabia Desert, maadaama dhulalka Carbeed ay inta badan ahaayeen dhulal qallalan oo lamadegaan ah. Sidoo kale, Yemen waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga beero kafeega si ganacsi ah, ka hor inta aanan laga beerin geedaha kafeega meelaha kale ee adduunka, waxaana ay Yemen ahayd ilaha keliya ee laga heli jiray kafeega. Dhulka Yemen ayaa ku fadhiya bad dhan qiyaastii 527,970 kiiloomitir laba jibaaran, waana dalka 49aad ee ugu weyn adduunka marka loo eego baaxad ahaan. Juqraafi ahaan, Yemen waa dal aad u kala duwan dhul ahaan, waxaana uu leeyahay waddankan buuro dhaadheer kuwaas oo dhaca galbeedka waddanka, waana meelaha ugu cagaaran ee waddanku leeyahay. Waxaana xusid mudan in buurta ugu dheer waddankan Yemen, oo loo yaqaano Buurta Nebi Shucayb, ay ku taallo galbeedka waddankan. Sidoo kale, waddanku waxa uu leeyahay dooxo xeebeed fidsan oo ku taalla xeebta Badda Cas, jasiirado aad u qurux badan oo ay ka mid tahay jasiiradda caanka ah ee Socotra. Yemen waxa kale oo ay caanka ku tahay waa xeeb dheer oo gaaraysa ilaa 2,000 oo kiiloomitir, iyagoona dadka reer Yemen ka faa'iideysta kheyraadka laga helo xeebaha oo ay ugu horreeyaan kalluunka. Dalkan ka hor inta uusan midoobin waxay kala ahaayeen laba dal oo la kala oran jiray Waqooyiga Yemen oo loo yaqiinay Jamhuuriyadda Carabta ee Yemen, iyo Koonfurta Yemen oo iyana loo yaqiinay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee dadka Yemen. Labadaas dal ayaa midoobay sanadkii 1990kii, iyagoo samaystay hal jamhuuriyad. Si kastaba ha ahaatee, khilaaf siyaasadeed iyo dagaallo sokeeye ayaa dalkan ragaadiyey. Jamhuuriyadda Yemen ee maanta jirta waxay dhalatay bishii May ee sanadkii 1990kii, markaas oo Yementa Waqooyi ay la midowday Yementa Koonfureed. Markii uu midowgaasi dhacay, waxaa loo aqoonsaday caasimadda waddankaas inay noqoto magaalada Sanca, oo markii hore ahayd caasimadda Yementa Waqooyi, halka Cadan oo iyana ahayd caasimadda Yementa Koonfureed loo aqoonsaday in ay noqoto xarunta dhaqaalaha ee waddanka. Madaxweynihii ugu horreeyay ee ay yeeshaan markii ay midoobeen labada Yemen waxa uu ahaa Cali Cabdalla Saalax, waxa uuna xukunka hayay ilaa sanadkii 2012kii, markaas oo uu xukunka isaga degay sababo la xiriira kacdoonkii lagaga soo horjeeday dowladdiisa. Labada qaybood ee Yemen waxay soo mareen taariikho aad u kala duwan. Yementa Waqooyi weligeed lama gumaysan oo ma aysan gelin gacanta gumaystihii Ingiriiska, halka Yementa Koonfureed uu gumaystay Ingiriisku isaga oo haystay 1839kii ilaa 1967. Tan iyo midayntii kadib, Yemen waxay la dhibaneyd kala qaybsanaan ku salaysan diinta, qabiilka, deegaanka, iyagoo mararka qaarna sababa kala qaybsanaantaas rabshado geysta dhibaatooyin fara badan. Dalkan, labada dal ee xuduudda uu la wadaago oo kala ah Sacuudi Carabiya iyo Cumaan, midkoodna lama laha xuduud rasmi ah oo la calaamadeeyay, waana sababta inta badan ay dagaallo uga jiraan xuduudka Sacuudi Carabiya iyo Yemen. Dhaqaalaha waddanka Yemen waa mid liita, waxaana u sabab ah isfahamwaaga ka jira waddanka iyo dagaalada ka socda dalkaas. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee waddankani leeyahay waa saliidda ku jirta dhulka Yemen, taas oo soo saaristeeda aanan heshiis lagu ahayn. Waddanka Yemen, kadib kacdoonkii ka dhacay 2011kii oo xilka looga tuuray Cali Cabdalla Saalax, ma aysan yeelan madaxweyne rasmi ah oo dhammaan dalka maamula. Madaxweynaha hadda talada haya, Cabdirabuux Mansuur Haadi, ayaa talada qabsaday sanadkii 2012, balse si buuxda uma maamulo waddanka oo idil. Sababtuna waa in ay jiraan kooxo ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo Cabdirabuux Mansuur. Xaaladda guud ee waddanka Yemen waa mid aan xasiloonayn, waxaana qayb ka mid ah waddanka gacanta ku haya kooxo kala duwan oo iska soo horjeeda. Xaaladda guud ee haatan waddanka Yemen waa mid cakiran, waxa ayna noqotay meel ay ku hardamaan quwadaha militari ee dunida. Yemen waa dal uu ka jiro jahwareer siyaasadeed, halka dadkiisuna ay la tacaalayaan nolol adag oo ay ku lifaaqan tahay cabsi, gaajo. Yemen waa waddan u baahan xal aan xabad ahayn.